waxaa guud ahaanba gobolka Sool maanta si rasmi ah uga bilaabmatay qaadashada kaadhka codbixiyayaasha waxaana ka soo qayb galay saraakiisha sarsare ee ka socda xisbiyada mucaaradka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland komishinka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland ee gobolka Sool madaxdii kala duwaneed halka 10kii bishii 6aad 2023 waxaa degmada Caynaba gobolka Sool si rasmi ah uga bilaabantay arkii diiwaangelinta codbixiyayaasha kaadhku waxay ka qaadashada maanta waxay si rasmi ah uga bilaabmaysaa degmada Caynaba gobolka Sool iyo degmada Xudun qaybo kamid ah ayay maanta si rasmi ah uga bilaabmaysaa muddada kaadh qaadashadu ay soconaysaa waxa weeye waa muddo dhan 10 cisho weeyaan waxaan u sheegaynaa muwaadiniinta ku nool degmada Caynaba iyo nawaaxigeeda in loo soo diyaariyay oo looga soo shaqeeyay waxa weeyaan kaadhkoodii oo loo keenay goobihii ay iska diiwaan galiyeen qof kastoo muwaadin ah waxaan ugu baaqaynaa inay yimaadaan goobaha iska diiwaan galiyeen oo qaataan kaadhkooda waxaynu ku jirnaa wali kormeerkii goobaha kaadh qaybinta ee degmada Caynaba halkan waa goobtii labaad ee aan saaka soo gaadhnay waa degmadii og weeye oo si fiican uga socoto kaadh qaybintu iyadana 6 saaka ka bilaabantay markaas waxaan bay shaqadu socotaa markasta waxaan jecelahay in shacabka ku nool gobolka Sool isdiiwaan galiyay waxa weeye kaadhkoodii loo keenay inay kaadhkoodii qaataan ay ka dhacday diiwaan gelintii hore waxa weeye kaadhkoodii way yaalaan diyaarna waa loo leeyahay marka inay qaataan baan markasta ku dhiirigelinaynaa maanta taariikhdu ay tahay 12kii bishii 6aad 2023 waa maalintii loo aasteeyay saddexda gobol ee haray ee u haray kaadh qaybintii oo ah sida uu sheegay muxuu ahaa Maxamuud gobolka Sool iyo gobolka Maroodijeex iyo gobolka Togdheer saddexdii gobol ee ugu dambeeyay weeye maanta ka bilaabantay halkan aan ugu joogna hadda waa gobolka Sool oo saaka si rasmi ah oo nabadgelyo ah oo fiican oo hufan ay uga bilaabantay kaadh qaybintii dadka waxaan u sheegaynaa waxa muxuu ahaa haystaan 10 casho cid waliba waa ku qaadan kartaa kaadh iyo nawaaxigeeda iyo Xudun waxaan muxuu ahaa ku boorinaynaa inaan kaadhkooda qaataan maanta taariikhdu tahay 12kii bisha Juun ama bisha 6aad waxa saddexda gobol Maroodijeex iyo Togdheer iyo gobolka Sool ka bilaabmay kaadh qaybintii anagu adan task force nahay waxaan joognaa gobolka Sool si wanaagsan bay uga socotaa kaadh qaadashadii dadka waxaan ku boorinaynaa inay kaadhka qaataan oo ninkii isdiiwaan galiyay hore isu diiwaan galiyay inuu kaadhkiisii ka soo doonto goobtii waxaan ku boorinaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba in aanay kaadh ka noqon gobolka Sool bismillaahir rahmaanir rahiim ilaahay baa mahadle subxaanahu wa ta'aala ugu horeyn marka labaad waxaan u mahadcelinayaa halwadanada komishinka doorashooyinka ee gobolka Saraar iyo gobolka Soolba oo runtii hawsha maanta halka ka socota si hufan u wada oo aan leeyahay waa ku mahadsantiin shaqada si wanaagsan u haysaan marka labaad shacabweynaha gobolka Saraar waxaan ugu baaqaynaa marka hore inay qaataan kaadhka codbixinta oo loo soo diyaariyay oo goob kasta oo qof kasta iska diiwaan galiyay ay yaalaan waxaan bulshada degmada Caynaba ama Saraar ugu baaqaynaa meel ay joogtaba in ay ka faa'iideystaan qaadashada kaadhka oo maanta la furay oo xafiis waliba diyaar yahay oo goob kasta loogu adeegayo muwaadin kasta kaadhkiisa ka qaadanaya oo xafiisyadii furan yihiin maanta waa waqti barwaaqo waxaan leenahay kaadhku idinka noqon kaadhka soo doonta waana la idin shaqaynayaa gelin hore iyo gelin dambaba maanta farxad waxay noo tahay in aynu si nabada aynu u qaadanayno barnaamijkii inta badan ee la soo waday ee ahaa isdiiwaangelintii tacabka badan iyo waqtiga badan la geliyay iyo juhdiga badan runtii maantana ay marayaan in kaadhkii la qaato waxaan ku boorinayaa dadweynaha gobolka Saraar in ay runtii kaadhka qaataan